هادي مرغوري خدنا نطيري وحليلي موي ونسو مويني هادي مرغوري خدنا نطيري وحليلي موي ونسو مويني haddii mar hore hodan aanu diray wax haleelay mooye weli suuma hooyanini adigaa habboonoo hoos wax ugu sheegee wuxuu ka yidhi raadiyo timo dheerana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa raadiyo timo dheere oo idinka salaamaya halka uu internetka ku leeyahay timadheere.com tanina marnaba meesha kama maqna midnaba meesha kama maqna war ma iska fur guriga joogto war daa iska fur halkan dhigo aad iyo aad baan idin salaamay mar labaad soo dhawaada asxaabtayda ku xidhan halkan raadiyowgan inta daawata maanta waxaynu ka hadlaynaa baraha bulshada baryahanba waxaa la isdhex marayay nin madow oo la dilay soomaalidii minnesota oo xafaaday alaab guranaysa halkaas soomaalida anigu like baan u saaray waayo qof waliba waxa necessary-ga u baahan yahay unbuu qaataa haddaama tv balaata ama talaagaday qaadi karayaan xafaayadaha iyo caanidooga u baahan yahay bay qaadanayaan baan idin salaamayaa su-aal baan doonayaa inaan inta i daawataba inaan weydiiyo radio timo dheere iyo xertiisu baadhitaan baanu samaynay history badan baanu baadhnay su-aashan ay weydiinaya haddaba wax ay tahay haddaynu nahay soomaaliinta afka soomaaliga ku hadasha ninkan madow maxaa ka qaldan ninkan madow maxaa si ah ilin weyn wax la isweydiiyo la idhaa waxaan see u dhaceen marka wax dhacaan sidee u dhaceen ninkan madow dadka madow baynu nahay maadaama dad madow nahay dadkan madow maxaa ka qaldan maxaa sabab waayo haddii taariikhda la baadho waqtigii nabi maxamed addoomaa jiray nabi ciise way jireen ilaa xilligaasaa addoonsuu jiray xilligaasaa ninka madow uu ahaa nin hooseeya alaanadaa cunsuriyaddu way jirtaa dadkeennan qurbaha yurub ku nool dadka africa jooga qurbaha ku noole nin walba se u taabatayba cunsuriyaddu way taabanaysaa ninka u shaqo taga ee habeen walba dhex mara ee ka dhex meesha cunsuriga waad la kulmaysaa jaarkaagaad kala kulmaysaa wax ku diidan waad arkaysaa way jirtaa arrintaasi maxay tahay waa ogtiina maraykanka nin baa lagu dilay hal la dilay wuxuu yidhi ka'damaan diine ra'daad daba socotaan diiday buu yidhi afka norwejiga wax si saaro dhibca saarsaan suuli a'damaan diidin buu yidhi swedishka dhibcahan dusha ka saaran baan diiday buu inta la yidhi afka maxaad barowdanay marka hal la dilay ninkii waxaan diiday inta lowga la saaray isagoo barooraya la hooyooyo aan neefsado in nafta lagaga qaado halkii waxaa la yidhi ninkaas warka waa haysaan inaad ka dabageeya ma doonayo $20 wuxuu ahaa ninkan security ka shaqayn jiray albaabada iyo dadka meherada ilaalin jiray qabti marka dhacay meheradii la xidhay wuxuu iska ahaa banaanku iska joogay muu ahay nin tuuga $20 bay ahayd bari lacagtaasi ninka lagu dilay $20 oo baakeed sigaar uu ka qaadanaya dukaanka weyne maadu baakeedkeeda isku xidhan intaasay lacagtu ahayd marka anigu baadhitaan samey wuxuu hadalkeeda ku dheerin baadhitaan samey waxaa la yidhi nabiyullaahi muuse sallallahu alayhi wasallam markii ilaahay abuuray watiif xaawa feedh looga sameeyey sidii aanay u cidlo aanu cidlan laba inan bay dhaleen labadii inan markay dhaleen haabiil iyo qaabiil u dhalay ay dhaleen waxa la mataan ahayd inantii bay isku dilay siirada waa haysa inantii markii la isku dilay mid baa kii kale walaalkii dilay habiiba qaabiil markii uu qoonsado dilay anigu waxa aan qaba ninkan wax dilay uu yahay ninkii madooba caddaan iyo madooba yahay nacsi madooba yahay ninkan markaa oo aynu dembi horan gallay inaan ugu haysta baaritaanku radio timo dheere iyo ay sameeyeen xertiisii ninkani aynu ka soo jeednaa waa ninkii wax dilay
innagana inantii uurku harbayno inantii bayna dhashay markaa dembiga laynaga jaray waa ka bal carabaha eega waa ogtii dadka carabaha soo marayba sheekadaa ka haysaan nolosha kama jirtaba inta la dilay inta jeerash ku satira ma cidina uma barnaamij cidina ma hadasho caadi bay ku oranayaan bacrad kuwana bay ku qoran caloosha ku qoran caadi bay ku oranayaan axiya caadi bay ku oranayaan ya marka su-aashaas ayaan idin weydiinaya aniga waxay la tahay sidaa bal ninkan madow ba isweydiiyo fikira oo ninkan madow maxaa ka qaldan maalin baa waxaa dhacday meel iskuula ka shaqayn jiray caruur baa naloo qaybqaybiyey samarkana markay qoraxda kana suuska caruurtay qaybiyeen caruur dhan meelan sidoo inta la leego la ilaalin dee warrooyin laakiin waa la ilaalinayaa deebahaas ku dhacaya kaymahaasaan geeyey kaymihii markaanu geynay inaan yaroo groupkaygii la socda ayaa tidhi yo hotes fadha manikh dadka madow waa necab waan yaa markaasaas ma ciijisa markaasaas meeshan jeerkan ma ku garbidaa markaasaas war may ka daa maxaa dhacay inantii yareed baan hoos u wareystay waxaan ku wuri markaa ay bay leeyihin madow abeed soo kaxaysa waxaan ku ay madow soo malihin dad necabka sayidii waa smart waa fiican yahay bay tiri okay dharka xidhan tahay madow iyo casaan bay isugu jira madow badan maxaad madowga waxay tiri waa kala dee waxana waa kala shibruus oo xawayaan maaha malaha ha midab lord way leedahay waxana waa midab si diinteedu bay noo sheegtay waa midab siday bilaadanku u kala xariifsan inuu kala unbay unba jirta inanteeda waa inay yaro ciyaar waxba ma ka jawaabi karto sorry bay ku tiri waa ilmo yaro caruur laakiin hooyadeedii aabaheed baa u sheegay hooyadeedii aabaheed kuwii dhalay ayaa u sheegay oo ku barbaariyey oo og waxyaaba noocaas oo badan oo aad arkaysa cunsuriyaddu halkay meelahan ka taagan tahay baad arkaysa ilmo yar 11 jir 12 jir oo kale waa nacabay dadka madow oo weligii qof madow laba jeer ama arkay ma aan arag oon cid waxba ku sameey oo aynka ku raay way badan yihiin too much way dadka waxa la kulmo ta kale hadalkeeda badaa inagu Soomaali baan noo damba kamarina arba balaak marka lagu karas damba kama kala anu su'aashaas intaasaan ku soo koobi lahaa aadiyad baan idin salaamaya waa radio Timadheere oo idin leh waxaan kaga tagayaa su-aashaas maskaxdeena weydiiyo ilaahay wax baa la fikiraya waxaan kaga tagayaa heedo tanna haylaabina waa radio Timadheere oo kaga tagaya tanina marna ma meesha kala noqona heedo